ciidamada oo tababarka u furmay ayaa ah ururka lixdanaad oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si gaar ah u ilaaliya xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. 118 ka mid ah ciidamadaasi ayuu tababarka si gaar ah ugu qabsoomay waxaana carbiska ciidamadaasi u furay wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. wasiirka difaaca Soomaaliya ayaa ciidamada kula dardaarmay in ay ka qayb qaataan difaaca dalka kana faa'iideystaan tababarka. runtii aadan ugu faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo dufcaddii afaraad ee ururka lixdanaad ee tababarka maanta uu u furmayo. waxaan aad ugu faraxsanahay sida aad u soo diyaar garowdeen. waxaan aaminsanahay ururka lixdanaad inuu ka duwan yahay ururada kale. ururada kale waxaad kaga duwantihiin mas'uuliyadda idin saaran. mas'uuliyad ka culus baa idin saaran ciidanka intiisa kale. waxaan aaminsanahay inaad tihiin kuwa tusaale u noqda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. runtii waxaan aaminsanahay tababarka dad badan waxay yiraahdaan maxaa la yiraahdaa tababarka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka caafimaadkiisa laftiisa soo dhisaya. marka waxaan fiiriyay schedule-ka la idin dejiyay ee tababarka. subaxii waxaa ugu horeeya BT inaad 5 aroornimo soo kacdaan kadibna meeshaasi uu ka bilowdo dishibliinkii aad barataan, salaamihii aad barataan, VIP protection aad barataan, diintii aad barataan. mid ka mid ah askarta uu tababarka u furmay oo TV-ga Universal la hadlay ayaa tixgabi ah u tiriyay ciidamada oo ku guubaabinayay waxaana uu wacd ku maray in uu ka qayb qaadanayo difaaca dalka. waxaan maskax la isu geystiyo midnimadu way macaan tahay mushkiladii dhabkii kula darsaa lagaga maatahay mas'uuliyiin la soo moqolo talada loo miray hawsha muftax bay shacbiga uga noqdeen wixii masiibo ay midigta u gasheen xaqi maradu saaray mooryaantii baa quusatay maalmada cunayaashii dadkii marimada goosan jiray mirifta loo qaad mashruuciyo ololo wuxuu wado maanku noo degiyo magac iyo qabiil laga tagiyo lisma maqashin. Cabdicasiis Ibrahim Ahmed, OK, TV Universal, magaalada Muqdisho.